markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. dhegaystayaal barnaamijkii toddobaadkii hore sidaan ugu furfurtay tilmaamaha maansayahanka dhabta ah uu eebba ku galladay waxaa ka mid ah awoodda wax ka dhaadhicinta qofka ama dadka ay markaas diiraddu u saaran tahay qofka ama dadka uu ku tashan yahay inuu ku soo rido waddada inay maraan uu la jeclaan lahaa. arrintaas iyadaa si aan u muujiyana waxaan markhaati uga dhigtay sheeko soo martay Salaan Carabey maansayahankii la oran jiray iyo gabay uu sheekadaas ku wariyey. aan idin xusuusiyey waxay ahayd waagii uu Salaan cawo dhoob la doonay ee la siiyey ee yaradkii lagu heshiiyey uu ka keenay. hase ahaatee si loogu dhiso lagu shardiyey xoolihii uu hore u bixiyey inuu soo raaciyo sange aysan haadu gaari karin oo wagan xile magaciisu ahaa. sange aanu isagu lahayn abtigiisa oo Xuseen la oran jiray uu lahaa. danise waa seetee waatuu dabadeed ninkaas u sadcaalay markuu u tegayna ka duraantay in wagan xile uu gacanta ka geliyo. waatuu u diiday kadib markuu la tashaday odayadii iyo dagaalyahanadii ay isku jifada ahaayeen. maxaa yeelay waxaa col ahaa iyaga iyo nimankii uu Salaan la xididay ee uu rabay in faraska uu u geeyo. markiibana waa kii tiriyey gabaygii uu abtigiis ku beerdurucsanayay ha yeeshee uu ugu soo loodsami waayey. ugu dambaystiina degmadii reer abtigiis waa kii ka huleelay isagoo hunga ah muraayadii qalbigiisuna ay baduugaha tahay. Salaan ka sokow waxaa isna jiray gabyaa kale oo ay isku gada ahaayeen ha yeeshee in doora ka nolol dambeeyey. waa Guuleed Jucfo Samatar oo siday maansayahanadii xilligu u badnaayeen ahaa nin mar walba oo ay xaasha ku adkaato gartiisa maansada ku sheegta kol uu ku guulaysto iyo kol uu ku hungoobaba. goor haddaba lagu wada 1940 ayuu Guuleed aad isugu hawlay inuu maansada ku furdaamiyo arrin geeda badan marba mid loo fariistay, arrin la isku afgaran waayey, aadna loogu raftay. waxay ahayd arrin ay la ahayd in isagu uu ku gar leeyahay taasoo uu u cuskanayay dhaqankii iyo xeerarkii degaankiisa ka jiray ee odayadii hore ay seeska u dhigeen. oo maxay ahayd? hilaada waa 1940 meeshu waa Gedo. gacanta jifadii uu Guuleed ku abtirsanayay ayaa waxaa ku baxay nin Xasan Buraale la oran jiray. dabadeedna 100 halaad oo magtiisii ah ayaa lagu xukumay. Guuleed iyo raggiisiina dilkaas ma ay dafirine waxay qabsadeen muddo ay ku soo ururiyaan. markaas bay si ay ula bixiyaan waxay ula kaceen jifo kale oo muddo dheer ay magwadaag ahaayeen. ha yeeshee way ku madax adeegeen. geelii magta ahaa qaybtii kaga soo aaday ayay diideen inay bixiyaan. marmarsiinyana waxay ka dhigteen in Xasan Buraale cayaayir iyo gardarro ay jifada Guuleed ku dishay. markii haddaba la ismari waayey qir iyo qir markay noqotay ayay labadii dhinac geedkii shirka isugu yimaadeen. maalintaas buu Guuleed tiriyey gabay dheer oo ka kooban 5 tuduc. nimankii ku madax adeegayna uu ku guubaabinayo inay magta la bixiyaan. tuduc 5taas ka mid ah oo ah midka aan maanta halkan ku warinayo ayuu ku faahfaahinayaa lixajeclaysiga xooluhu inaysan noqon wax la isku seego oo dadka xigaalka ahi ay ku kala go'aan. tabtii Salaan intuu yeelay ayuu tiriyey siyaaraha geela iyo hanti kasta oo kaleba uu qof kalihi ku waayi karo. taariikh fog
iyo dhacdooyin aadanaha soo maray intuu dib u milicsado ayuu tusaale ahaan u soo qaadanayaa raggii xooluhu intay ka bateen ay hodeen dabadeedna la dhaafiyey sida qaaruun iyo fircoonkii masar ee ka sarreeyey. wuxuu tirinayaa hasha ay bixinteeda ku masuugayaan fudaydka ay ku dhaafi karayso. ciidan weyn iyo gaadaba way kala tegi karaan. aad libaax baa ka dili kara. hilooyinka webi ganaana middood iyadoo ka waraabaysa ayuu yaxaas dhufan karaa. cudurrada geela ku dhaca midkood bay ku bixi kartaa sida guudaanka, dhukaanka iyo kuwa lamidka ah. intaas oo dhan wuxuu u marayaa inuu yidhaahdo, niman yahow xoolaha aad maanta noo diidaysaan ha u malaynina inay xeryihiinna ku waari doonaan. waxayna u badan tahay inay idin dhaafaan idinka oo aan cidna ku xeeran, nacfigoodana aydan wax badan ku naaloon. wuxuu yidhi guuleed, guuyadu rag badan bay khatari geeli ka horoowe, qaaruunba geelii bataa geliyey naartiiye, guryihii fircoon baa la rogay galab isniinaade, gaadaha dhacaayo iyo libaax gooriyaa badane qarar gawriciisiyo ragaad suulka yaa galae, ayadoo galgelin seexatay rubaddu guurtaaye, guluf baa ayaan kaala taga gaar adoo degaye, gaaniga iyo xaas baa dhuftaan loogu galihayn, haldhajaaba goostiyo mariid looga gees maro, guudaan xumaadaa laftiyo gooyo madaxiiye, gendi baa wareema iyo dhukaan galowlihiisii iyo godka faranfar baa soo qoday barar gadoontaaye, galab ay fulaysay minkii gaarka jabisaaye nin gabraarta, iyo maalin bay geeltid qalataaye, iyadoo aan xeer gelin nacfina adiga kaa gaarin, goor iyo ayaan bay baxdaa gaydhacaga weyne, waryaan baan la kala geynin baan idin garwaaqsin. gabaygii wagan xile siduu salaan ugu hungoobay, guuleedkiisa kuma hungoobin. wuxuu ku guulaystay raggii uu oradan lahaa siduu ka rabay inuu yeelsiiyo, iyaga oo raalli ka ahna ay bagtii qaybtooda bixiyaan. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo jooga. waa ina toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.